madaxweynaha maamul goboleedka Khaatuma Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaashi qaar kamid ah mas'uuliyiinta maamul goboleedka Khaatuma ee ku sugan gudaha degmada Taleex ayaa maanta kormeer kala duwan ku kala bixiyay qaybaha kala duwan ee ka kooban tahay degmada Taleex isagoona madaxweynuhu socod dheer ku maray wadada halbowlaha ee xiriirisa degmadani Taleex kormeerkan madaxweynaha oo ahaa mid ballaaran isla markaasna ugu korgalay xaaladda amniga midda nabadeed ee deegaankani ayaa markii uu soo gabagaboobay kormeerkani waxa uu madaxweynuhu warbaahinta iyo shacabweynaha reer Taleexba kula hadlay gudaha degmada Taleex isagoona soo hadal qaaday madaxweynaha Karaashi weynaha Khaatuma Tiri ee lagu baaqay inuu ka dhaco gudaha degmada Taleex waxaana uu sheegay madaxweyne Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaashi in mas'uuliyiinta maamulka Khaatuma iyo waxgaradka deegaanka Taleex aysan diidaneen qabsoomida shirkaasi balse maslaxadu ku jirto waa sida hadalka u dhigay in shirkaasi ka dhaco degmada Taleex marka ay soo dhamaadaan shirarka turxan bixineed ee beelaha qaarkood u socda xilligani waxa aan idin sheegayaa halkan saaka maanta kulankeena uu yahay walaahow lagu walaahoobo oo dadka wax magaratada iyo magasta laga dhaadhiciyay oo kuwa lugooyayaal la yiraahdo ama jabiyaal ay dadka u sheegaan أحمد خاتمه وكتجي بودلاند بوهالي هذا واحد شو مدحوينه مدحوين كوعين كي بودلاند عبد السمد على الشريف وجورجيسي مدحوين خاتمان ودي ذكرين شعبك خير تريح بان ودي ذكرين أنا جان ودي ذكرين أنا ومدي ذيو وجورجيسي waayo maslaxad buu ka wadaa maslaxad baan heshiis ku nahay dadka kuwa doonaya in dadku sidii u kala xidhnaado oo la isku dilo oo ay maxay tahay cadaawad dadka dhexdiisa laba walaala ama laba oday kala tirsadaan aanay isu gelin sidii ay ahaan jirtay baa meelaha ka qaylqaylinaya bal iimaan laawayaasha waxaa soo ciidana jooga dhowr wiil oo yar oo meesha marmaraya iyo kuwa ay meelaha ka soo dirdareen beelay ma shir qabanaya shir baa furan beelay sidee u furan yahay hadaanan anagu furin oo ninkii gobasha dhigay furin sawmaa meesha in mashaakil ka dhaco ay dabeedna ku qoslaan oo inaan haaweydii baan isku diray macnu inta weeye inaanu maxay ay tay waxan ay dumarkan iyo caruurahan iyo waxan ay soo kicinayaan inaanu la aqli noqono oo dabeedna meesha manaasaqa ka dhacdo oo ay halka intay jirka u jifsaayeen waa ka calool cad iska dhigeen shirna ma qabsoomayo shirku waa dhacaya waanu qorsheynaynaa turxaan bixintaasi markay dhamaato oo beelahan hadda fadhiya sarmaayo ay dhamaystaan oo la isku afkarto baa dhulbaantoo dhammi reer Khaatuma oo dhammi isugu iman karaan oo mid dibadda laga keenay ma iyagu ay wax abuuri karaan oo hareeraha ka fadhiisan karaan dhinaca kale madaxweyne Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaashi ayaa sidoo kale ka hadlay mowqifka kaga aadan maamul goboleedka Khaatuma in gacanta maamulka dib loogu soo celiyay deegaano badan oo ka tirsan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waxaana uu sheegay madaxweynuhu in ka maamul ahaan ay arintaasi ka go'an tahay isla mar ahaantaana ay dadaal xoogan ugu jiraan sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyo waliba sidoo kale deegaano kale oo ka tirsan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waxaynu ku dadaalaynaa حرين بينو جدنا إنك حرين بينو مهمة تلكيني إنه حرينه مالها شرر لو قبته هلب لو عنه أو تذكر لو الحميرة واحد بدن ما فايدين يعني لكن ما أنت وحينا جاينو بلنا حرين بينو دقائقنا الشركة نينا وحنو سمايننا وقت وكوه بوني هاي بينو قبلنا عبد الرحمن جامع حشي عبد الرحمن وطني صمصة TV تلح